السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دawad halkiisa joogta ku soo janaalka Sheekh Maxamed Baradar barnaamijka saaka soo qeybsiga ku soo qaato wararka ugu xisaabadana ku soo qeyb waxna salaam ku tamarka suuqa wararka dhanka suuqana waxaa ka mid ah waa maalinkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga bisha January ciyaartooy badan ayaana suuqa ka wareegay haddaba ciyaartooyda wareegtay ayaan soo gudbin doonaa inta aan ka gaarno Stoke Brown ayaa u saxay 2 sano heshiis cusub kooxda kubadda cagta Celtic kaasoo kooxda ku haynaya tan iyo 2021 warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Gary Cahill oo lagu waday inuu kooxda ka tago iyo iska diiday fursad uu ugu biiri karo kooxda Juventus waxa uu doonayaa inuu u dagaalamo booskiisa kooxda kubadda cagta ee Chelsea warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Oxford United ayaa la soo seexatay xidigii hore weerarkiga ciyaari jiray Liverpool Jerome Sinkular qaab maaha tan iyo dhamaadka xilli ciyaareedkan warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Cardiff City ayaa la seexatay Leonardo Bacuna kaas oo ka yimid kooxda Reading 4 sano iyo bar iyo kooxda qalinka ugu duugo heshiis ah waxaana ay ku soo qaateen lacag gaaraysa 3 milyan oo pound warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Kostas Mitroglou ayaa ku biiray kooxda kubadda cagta ee Galatasaray 18 bilood oo aha nambarka 22aad ee kooxdaas ayaana la siiyay warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Valencia ayaa la socotay weeraryahanka Robin Sobrino kaasoo ka yimid kooxda Deportivo Alaves adduun gaaraya 5 milyan oo geni heshiis ku eg 2022 ayuuna kooxda la gaaray warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Monaco 22 jirkii ka tirsanaa ee daafac uga ciyaarayay Almemi Toure ayaa ku biiray kooxda Eintracht Frankfurt qaab maaha tan iyo sanada 2023 heshiis ah ayuuna kooxda la gaaray maadaama uu yahay xilligii ugu dambeeyay suuqa waxaan xoogga ku saaraynaa gebi ahaan barnaamijkeentiisa ugu badan heshiisyada dhacay warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Johan Suter ayaa heshiiska u koriyay kooxdiisa Hearts tan iyo 2022 warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Wigan Athletic weeraryahankooda Jamie Vaughan ayaa qaab amaaha waxa ugu biiray tan iyo dhamaadka xilli ciyaareedkan kooxda Portsmouth warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Aston Villa ayaa la saxatay Tyrone Mings kaasoo ka yimid kooxda kubadda cagta ee Bournemouth qaab amaaha inta ka dhiman xilli ciyaareedkan warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah George Steven Nkudu ayaa ku biiray kooxda Monaco qaab amaaha inta ka dhiman xilli ciyaareedkan kooxda Tottenham ayuuna xidigaasi ka yimaaday warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Abubakar Kamara ayaa ku biiray kooxda Yeni Maltesbury isagoo ka yimid kooxda Fulham qaab amaaha kooxdaas ayuuna si rasmi uga mid noqday warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Newcastle ayaa rikoor ku soo qaadatay Miguel Almiron kaas oo Atlanta ka yimid adduun gaaraya 21 milyan oo pound waxaana uu saxay 5 sano iyo bar heshiis ah oo kooxda kubadda cagta ee Newcastle uu kula sii joogi doono warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Manchester City ayaa la saxatay 18 jirka qadka dhexe ka ciyaara ee Anti Balaverza 7 milyan oo pound ayay ku soo qaateen 4 sano iyo bar heshiis ayuuna kooxda u saxay waxaana dib ugu laaban doonaa kooxdiisa Hajduk qaab amaaha inta ka dhiman xilli ciyaareedkan 2020 ayuuna heshiiska xidigan ku egyahay warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Galatasaray ayaa la saxatay Mambaye Diagne kaasoo ka yimid kooxda Simbasa adduun gaaraya 10 milyan oo euro weeraryahankan ayaana xiran doona nambarka 91aad warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah 19 jirka kooxda Brighton weerarka uga ciyaaraya Aaron Connolly ayaa heshiis cusub oo 3 sano iyo bar u saxay kooxdiisa kubadda cagta ee Brighton waxaana jiri kara saxiyo xilliga ugu dambeeya suuqa dhaca waanan idinla soo wadaagi doonaa wixii kale oo isbedel oo dhanka suuqa ka dhaca maadaama lagu jiro waqtigii ugu dambeeyay suuqa kale gebi ahaan barnaamijkii waageynta